بسم الله الرحمن الرحيم. سومالنا وطن عرضنا حجر صوتنا يا فرسنا وحبضنا وقبصوني ويجران وحبضنا وقبيئة ويجران وحبضنا واحدين قبصتانا ويجران المحكة ديمقراطية دقيس كافريكا من سوماليا هون ديمقراطية انستيتيوت هي دراسات وصول سمية وحاصل بحضي إن سجال قرب هم سجال دبلتو وين سوماليا هيسطو سجال كدبلتو وين وحواج بين مسك كاشنو إنه هو الشرع دولة الشعب دلشري يدبت شري انتباه يقرن شري بقى إنه اسكاشنا إن وحكة طبعا يبقى تذكر هذا وضعك هيسطو حوي وحلو يقرن وضعك أقونس ما هيسطو أما lack of international recognition أقونس هو واحد بدو إنه حنبيه هاي إنه حبيه هاي سوق مالقشري يجناعسي وحنبات بدنا كوي ما يصير وحكينا جحمي بنقية دي الدنيا الحرير كودي أنا ولا حرير اللحين اللي جحمي هي إن فقارياش الدنيا ده كم وقنوا أكتدي إن كديبنا إسلام كنا إنه كقيف قادنا سوى البنكة يا IMF تا United Nations كا يا African Union كا Arab League كا يا أوراد الإسلام كويلين يا أوراد كلا دوام بقى marka arintaas waxay u baahan tahay inagu oo gudaheena inaynu xalino wax badan gudaheena isqabsano gudaheena gacmaha isqabsano gudaheena isu calool fiiwaano inagu oo mid ah kadibna shaqooyinka inoo yaala aan si wada jir ah u qabano qodobka labaad ee wadanka maanta haysta ee dhibaatada weyn waxa kamid ah economic constraints waxa caqabadaha dhaqaale wadankii kaabayaal dhaqaalo dhameystiran ma jiraan hal dekadii hal airport oo quraan leenahay dekada berbera iyo airportka Hargeysa iyo airportka berbera dekada isna kulli faaqan waxaanu baahanay dekada badan dhisno in airport badan dhisno in wadooyin shabakad ah nolosheena dhin walba kobciya wadamada jaarka ah ee wax kala faa'iideynayna isku keen xidhaan inaynu samayno waxa wadanka ka jira shaqo la'aan baahsan oo dhalinyaradii aad iyo aad u haysata lacagteena oo marmarka qaar inkastoo marka geeska Afrika loo eego inuu degannahay oo aan lacayo kala dunida ku xirnayn dahabna aan ku xirnayn oo marka dhaqdhaqaaq fara badan keenta oo ahayn mid la soo haleyn karo sugan qodobka saddexaad waa dhibaatooyinka jira arrimaha siyaasadda ama shacabkii oo siyaasadda si sax ah aan wax badan u midaysnayn ama saamileydi siyaasadda aqoonsiga caalamiga ah إن كلهنا سأقولنا كلهنا إن حوجنا وأمراء دارمها جده يارمها دلته وورشقيان أرمها جدها وأمراء دارمها دلته لجار مركب واحد بدنا جدها قداميس وأقوانت الله بهنا وعجلنت الله بهنا وتشرك الله بهنا سامحت الله بهنا سامح قيبسي سياسة يمنصب يخيرات يكابيال دخل الله بهنا إذا البر على كل نقطة بدل بهالكذا يدا نقونيسا يجري رسمي أو كشقيسا أقوسيا أدون كنا وحي أقبضته أيون بيجونا معلن أهو سدا سكاشن إنسان وحن صار إنه فينا حيوان أو دون دكتور دون ده قبضنا ونا دخلها قبضنا مات يصير هنا بس الدنيا ده أردنا الدنيا ما تحبنا يوم معاملة والدنيا يجوا بعض ما في بعضين مدينة حكومة قديم كمان دخل مهمة وفي عن أين كنا على خيرات بدن وين هيسنا لكن واحد نباهنا هاي إن ندكين لا تركوبه خيرات قطو كويسين تركوبه دبت إنه بسكاشنو عدة إلى مرماتين لا كاشنو سيدا يوم معاملة هي مهمة إن أرمها السياسة ده وحا دلك دباتكو دوشوينك أما دي بدحان نقضو أما دوشوينك فرح بدل لحان نقضو يمدو بحيلة دعيسو dadkii doorashooyinka fahamsanayn oo u baahan inay fahmaan oo muddo qabayl in marka dambe isku xiishiisteen oo islaan qabaylka iyo goboleysiga ka baxa balse axsaabta ay sameeyeen dib ay ugu noqdeen oo u baahan daraasad macna leh oo in la sameeyo si looga baxo oo ay muddo mabaadiida ay leeyihiin xisbiyadu inay xubno kala duwaneen oo marka qaar muddo magacyada oo dadka hogaaminayna kala duwan yihiin أصاحاتي قولين كيستدي سميسي مدرسة سميسي لهذين كم الله يقاب كودا يالان
ama mabaadidooda waxbarashada siyaasadeed dhaqaale waa isku mid oo magacyadu kala duwan yihiin dadka qaar soo jeediyay ama xisbi qura isku tirtaan magac kale alla baxdaan hadayna mabaadi waaweyn ku kala duwanay tabasho badan oo dhexdeena taala ayaa iyaduna jirta gobolada qaar tarafyada u badnaadaan gaar ahaan daimka soo qaato gobolada bariga iyaga waxaaba ka socda wada hadal iyo waxa ka socda maxaan ku dhahay duushisiina ka socda laakiin tan gobolada galbeedka ee gaar ahaan awdal iyo salal eego lix tabasho waaweyn ayaa jira oo ay doonayaan saami in la kordhiyo dadkaasi dad u qalma xilalka saamiga ahna ay helaan si taa loo xaliyo waxaan soo jeedinayn xilalka badan ee harsanka in badan in deegaanada la geeyo soo gaar ahaan maxkamadda sare in badan bay bari jirtay baldoorkan gobol galbeedka iyo awdal hal la geeyo dhalinyaro trabeel ah oo iyaguna bilaa shaqo ah gobolada tuban isla markaana niyadsa badanna oo hayo ku dhacay taasoo iisisay inaanay kalsooni badan ku qabin isla markaana taariiban u baahan wacyigelin badan iyo shaqogelin iyo shaqaabo dhalinyarada ay si tixgelin iyadoo guud ahaan dhalinyaradu ay shaqo la'aday laakiin tixgelin gaar ah la siiyo in airportka Boorama la dhiso in tikada lagu haya iyo sayl la dhiso in dhaambiyoodo laga sameeyo deegaanada in wadooyinkii la ballan qaaday sideeda loo fuliyo loo yacadiyo Boorama wadadii la fuliyo bakiyo Boorama darwanaajiyo Boorama Boorama iyo Awbare loo hayo Boorama ama wadada kale lagu soo xiro oo wadooyinkaasna wax tar badan iyo ayuu ka qayb qaadanaya wax soo ku filan 4 sano ee wadanku jiray gobolka Awdal iyo Salal waxa laga dhisay 28 kiiloomitir oo ah dila ilaa Boorama wax wada taas waliba bulshada deegaanka soo moodahay wadadii Soomaaliya dilay ku joogtay dila laga qaaday tuulooyinka iyo degmooyinkooda u baahan town plan gaar ahaan magaalada dila town plan rasmi u baahan marka waxa la yiraahdo waxyaabaha wax laga qabto walaalnimadii iyo wadajirkii iyo ilmadii wax badan ayaa soo noqonaya qodobka saddexaad waxa weeye u baahan bulshada in aad iyo aad wax looga qabto waarimaha bulshada gaar ahaan inta habayn ballaaran lagu sameeyo waxbarashadeenu ma aha nolosheena iyo baahiyeena u adeegta waana qaali waxaana noqotay qaab qabaa'il in loo furto waana bilaatayo marka siyaasadda waxbarashada gebigeeda dib lagu noqdo sidaas si lamida si hore soo sheegnay siyaasadda arrimaha dibadda iyada dib lagu noqdo oo siyaasadaha caafimaadka laftiisa dib lagu noqdo oo arkayso caafimaadka iyo qaaliya isla markaana isna tayo badan aan lahayn dhibaatada afraad ee wadanka ka jirta u baahan iska kaashada waa arrimaha isbedelka cimilada iyo deegaanka taasoo abaaro soo noqonaya xaal joogto ah fatahaado marmarka qaar yimaada biyo yaraan taasoo saamaysa beerihii iyo xoolihii iyo dadkiiba taasoo u baahan iyadana in la fahmo sidii iska digaa isbedelka cimilada loola qabsan lahaa wadanka looga sameeyo lahaa dhaamin waaweyn maxaan ku dhahday biyo qabatin loo sameeyo lahaa biyahana dhaafaya qorshe laga yeelan lahaa deegaan waliba wuxuu ku habooyay laga beeri lahaa dhulka seeraha ee la iska watay la baabiin lahaa dhirta la jarayo la joojin lahaa oo dhirta la beeri lahaa waxaa ka mid ah qodobka shanaad oo ah legal and institutional gaps oo aad moodo dadka inaana sharciga intii inoo taaleen inta maqan haba joogtay inaana cid hoggaansamaysa aanay jirin oo moodo qof waliba inuu ka doorbidayo qabiil sidii xoogka maska la dhex marayo iyo hay'adaheeni dawliga oo dhisnay oo maxaan ku qof garanaya shaqada laga rabo iyo xilliga laga rabo iyo waxa laga rabo ama qorshe sanadeed iyo qorshe hawleed iyo siyaasad dhammaystiran aanay jirin dijirtan aan lagu dhaqmayn qodobka lixaad ee wadanka aafooyinku ah waa musuqmaasuqa oo u baahan in si toos ah sida dambe loola dagaalamo dadkii oo moodo in musuqmaasuqa lagu dhaqayn haddana si dadban iyo si toos ah u dhiirigelinayaan oo halku ka dhigteen waa lagu magacaabay maxaad ka qabsatay iyo is-aamin darrada iyo sii baahaysa waxaa iyadana qodobka ku hoos jirta waxa la yiraahdo wastage of resources hanti badan oo ahayn markaa tii taagnayd ee muhiimkeedu wax laga qabto oo waxay nolosha wax looga qabto sidoo kale muhiimsan tahay iyaduna
tii ugu dambaysaba tii koowaad laga dhigayaa oo kuwii sida noloshu kala muhiimsanayd aad moodo inaan wax looga qabanayn. qodobka toddobaad waa qabyaaladda oo aad moodo inay waddanku hayso dhibaato aad iyo aad u weyn oo si khaldan loo adeegsanayo, taasoo beelihii been abuur iyo wanjal iyo nacayb iyo kala shaki lagu abuurayo, taasoo la isu marinayo warbaahinta, iyadoona u baahan in arrintaasi aad iyo aad looga digtoodo bulshadana sidii loo midayn lahaa. qabyaaladuna sidii in qabyaalada isu adeegsado looga dagaalami lahaa. qaadka oo aad moodo isugu aafo qaran yahay u baahan isagana daraasado badan oo kala duwan laga sameeyo. warbaahinta iyo teknolojiyadda oo aad moodo si khaldan in loo adeegsado dhinac khaldan oo aan ka marnay, hadday baraha bulshada noqoto, hadday tviyada noqoto, hadday joornaalada noqoto, hadday internetka iyo isticmaalkiisa ay noqoto si khaldan oo dhankii faa'iidada lahaa waa midi laba afle warbaahintu hadii la israa wax ku toosiya wax ku hagaajiya waddanka horumarkiisa ka qayb qaatana, maadaama ummad oral society aynu nahay si waafiya iyaga iyo abwaanada iyo fanaaniinta iyo culimada iyo waxgaradka inta haddeen isku darano ummadda si san iyo meel san iyo dhinac san baynu joogi karnaa. qodobka sagaalaad oo ah is aqoonsi la'aan, innaga dhexdeena is aqoonsanay inaynu waddan gaaran nahay, ummad walaalaan nahay, ehel nahay, isu baahan nahay, kala maarmin. qof waliba wuxuu u baahan kan kale u baahan yahay, magacaada aad u doonayso magaca kan kale isna saasi la mid ah isna uu doonayo oo ay tahay waxaad naftaada la jeceshahay, walaalka la jeclow, waxaad qabiilkaaga la jeceshahay, qabaylada kale la jeclow. noloshuna ay ku macaan tahay hoo iyo isi ay ku macaan tahay. waxaan daraasadda sameeyey maxadka dimuqraadiyadda on democracy in Somaliland, on democracy institute, sagaalkaa dhibaatay waaweyn baatooyinku way badan yihiin laakiin sagaalkaasa ugu waaweyn. sagaalkaas ay tahay inaynu iska kaashano, dowladda ku taageerno, qaab aqoon ku jirto, adduunyadu way soo wada martay sidaynu uga samato bixi lahayn aynu fula weyn galno. marka hawl badan baa inoo taalla, hawlaha inoo yaalla sidii wax looga qaban lahaa inaynu fula weyn galnaa. hawlaha haddii wax laga qaban waayo amni darray keenaan, amni darraduna waxay keento waynu ognahay oo burbur iyo kala tag iyo isnac iyo nacayb ayay geysisaa. marka waxaan u rajeynayaa Somaliland guul iyo gobonnimo, midnimo aan ogaano waxayna haystaa, hawlaha inoo yaallaa badan inaynagu isku mashquulin, cid kale nagu mashquulsannahay iyo inaan dan ka gelinin danahayna inoo yaalla aan qabsanno. asalaamu calaykum waraxmatullahi.